wardegdega ciidamadii ugu badnaa oo ka socda dalalka Masar iyo Eritrea ayaa saacadaha soo aadan ku soo wajahan Soomaaliya in ka badan 30,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Masar iyo Eritrea ayaa imaan doona 48 saac ee soo socota Soomaaliya waxaa si toos ah la isugu baastay in Soomaaliya laga difaaco gardarrada cad ee Itoobiya ay ku wado qayb ka mid ah Soomaaliya ciidamadii ugu badnaa ee Itoobiyaanka ay ku sugnaa Soomaaliya markan waxa ay wajahayaan qalqal xoogan oo ka dhashay tallaabada ay qaadeen Masar iyo sidoo kale Eritrea waxaan kula wadaagi doonaa Cabdifataax Siisi iyo sidoo kale Isaasi Afwerki oo markan doonaya inay kumanaan askar oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ay tababaro kala duwan u furaan sidoo kale waxay doonayaan ama dawladda Soomaaliya ay xilligan ku boorinayaan inay soo dirsato kumanaan askar oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya isla markaana dhalinyaro cusub ay qorato loona tababaro si ay ugu diyaar garoobaan difaaca qarannimada Soomaaliya waxaan doonayaa daawade in aan warkeena subaxnimo kugula wadaago wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqan iyo sidoo kale waxa laga filan karo xilligan iyo sidoo kale Itoobiya oo markan baroorteeda orgiga ka weynaa rabto kadib tallaabooyinkan kala duwan ee Masar iyo sidoo kale Eritrea ay qaadayaan xilli la warinayo inay argagax xoog leh tallaabadan ku abuurayso Itoobiya hadda sababase iyadu miyay ku goobi doontaa qorshaheeda ku aadanaa gudaha Soomaaliya ayaan doonayaa daawade inaan kugula wadaago muuqaalkeena asaate waxaan ka codsanaynaa nagu soo biirto aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran muuqaalka la garayso share garayso la sii wadaagta asxaabtaada aragtana qaybta faallada nagu rabto waan kaaga mahadnaqayaa daawasho la socodka wararkeena subax wanaagsan waxaan ku bilaabayaa wararkeena soo gaaraya ayaa tibaaxaya in ciidamada dawladda Masar iyo sidoo kale kuwa ka socda dawladda Eritrea ay 48 saac soo socota ku soo wajahan qayb ka mid ah Soomaaliya ciidamadan ayaa la tibaaxayaa inay yihiin in ka badan 30,000 oo askari oo ka socota dalalka Masar iyo sidoo kale Eritrea waana ciidamo lagu dhisay heshiiskii dhawaan Soomaaliya Eritrea iyo sidoo kale Masar ay ku wada gaareen magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea 10,000 oo ka mid ah askartan waxay ka socdaan dawladda Eritrea halka in ka badan 20,000 oo askari oo ka socota Masarna ay soo gaari doonaan Soomaaliya sida ay tibaaxayaan xogaha daasoon ee soo baxaya gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee sanadda militariga ayay ku beeseen ciidamadan sida ay tibaaxayaan xogaha daasoon ee soo baxaya wana Soomaaliya keeni doona dhowr duulimaad oo 48 saac soo socota gudaheeda ay sameyn doonaan diyaaradaha kala duwan ee laga leeyahay ama ka imaan doona Asmara iyo sidoo kale Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi ayaa la sheegay in ciidamadani uu ka soo sogootiyay qaybo ka mid ah dalkiisa isla markaana uu sheegay inay u diyaar garoobaan siday u difaaci lahaayeen walaalahooda Soomaaliya waxa la sheegay ciidamadan in la geey doono xuduudda Soomaaliya sidoo kale Itoobiya gaar ahaan aaga Feerfeer iyo sidoo kale Doolow ayaa la sheegayaa in la geey doono sida ay tibaaxayaan xogaha daasoon ee soo baxaya hase ahaatee xogta ku gadaaman deegaanada ay sida rasmiga uga howlgeli doonaan ciidamadan ma ahan mid si madax bannaan loo xaqiijin karo markii laga reebo tillaabooyinka kala duwan ee la qaadayo iyo sidoo kale ififaalaha ay muujinayaan madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi oo horey ciidamadan ugu qudbeeyay ayaa sheegay inay u diyaar garoobaan difaaca waxa uu yeeray sharafka ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo sidoo kale Masar ay dad walaalo ah isla markaana dhiig iyo sidoo kale dheecaanba wadaagi kara waa sida uu sheegay madaxweyne Cabdifataax Siisi oo horey u la hadlayay ciidamadan ka soo kici timi doona saacadaha soo aadan qayb ka mid ah waddanka Masar tallaabadan ayaa imaanaysa xilli Itoobiya ay daadaansiga ugu weyn ku wado Soomaaliya isla markaana ay qayb ka mid ah dalkeena soo gelisay kumanaan askara kuwaas oo ka socda dawladda Itoobiya isla markaana ugu tala gashay inay ku qashqashaado qarankeena Soomaaliya wixii warar ka soo kordha daawada waxaan ku soo gudbin doonaa wararka iyo sidoo kale muuqaalada kuwan ay xiga nagu soo biro kamid noqon saaxiibada nagu xiran muuqaalka la galay share garow la sii wadaag asxaabtaada aragtana qaybta faaladan ugu waan kaga mahadnaqayaa daawashada la socodka wararkeena nabadgelyo